السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي عبد الرحمن هلكا إيقا داوني ست وابنا وفيشيال فضلا جنالك هدياك وعصبتا سبسكرايب صار سيكوسو قرام مقالة سيقا مقال كان حكا قهد لنا وامحي صوبتا تقوبا هانتها إنا سمي صدق لي كردوان أما وامحي وحلو يقان باسف إنكم وحلو يقانا إنا الرياضة هاي ريسورسيس كردوان ama dakhli kala duwan oo kaasoo kala galaya meelo kala duwan diridu waxaad maalin ka sii dabeysaa nolosha maciishadu way sii kordhaysaa oo qaali noqonaysaa soo marka waxaad u baahan tahay inaad yeelato dakhli kala duwan hadii ay tahay yani mid ka baxsan mushaarkaaga sidoo kale hadii aad ganacsado tahay sidoo kale mid ka baxsan ganacsigaaga inaad u gudubtid meelo kale oo investment aad ku sameeysid si dakhligaadu u kordho waayo maciishadu iyo noloshu maalin ka sii dambeysa way kordhaysaa sidoo kale waxa aad u kordhaya isdhaxgalka bulshada caalamka ayadoo adduunyadu idil ay noqotay globalization waxa loo yaqaan isku furan maanta waxa laga yaabaa qofka muwaadinka ee Soomaaliga in yani alaab uu ka dalban karo asagoo gurigiisa jooga wadan kale soo marba ka sii dambeysa maciishadu noloshu aad ay u kordhaysaa muhiim ayaan u tahay nafsadaada inaad sameysid passive income dakhli kala duwan waayo waxa laga yaabaa mushaarkaaga inuusan ku kaafinin ama uusan bixin karin yani baahiyaha kala duwan ee aad qabtid kasoo baahida nafsiin adiga aad qabtid sidoo kale waxaad leedahay family adiga kugu xeeran haday yihiin family adiga yani kuwa adiga ka dhalatay iyo kuwa adiga aad dhashay waa garsomaan dhammaan heerarka kala duwan ee nolosha waxay u baahan tahay yani inaad ku fangareysid budget kaas la'aantiisana yani wax dhaqaaqayo haba yaraatee oo soconayo ma jirto si aad budgetkaas aad u dejisid you need waxaad u baahan tahay resource dakhli ku soo galaya oo adiga ku kaafinaya oo miisaaniyad ku yani aad ku degsanaysid qaybna saving ka dhigaysid qaybna aad fangareynaysid qaybna aad investment ka dhigaysid soo mar walba ku talagal sidii aad u sameyn lahayd wax loo yaqaan passive income waxaan rajeynayaa muuqaalkan in wax badan aad ka faa'iiday insha Allah channelka hadii aad ku subscribe saar si aad ula socotid muuqaalada xiga